saxaafadeed ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya kulan ay maanta isugu yimaadeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha midowga musharaxiinta ayaa waxay uga wada hadleen arrimaha doorashooyinka dalka. Midowga musharaxiinta ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen daahfurnaan la'aanta ka jirta doorashooyinka dalka iyo sida aanay raalli uga noqon karin habka ay hadda wax u socdaan. Ra'iisul wasaaraha ayaa madaxda midowga musharaxiinta waxa uu uga warbixiyay dadaalka joogtada ah ee la xiriira xaqiijinta hufnaanta doorashada waxa uu la wadaagay inuu faray gudiyada doorashada inay waajibaadkooda u gutaan si waafaqsan habraacyadii lagu heshiiyay ee doorashooyinka. Ra'iisul wasaaraha isagoo tixgelinaya cabashooyinka iyo tabashooyinka la xiriira daahfurnaanta doorashooyinka ay muujiyeen midowga musharaxiinta dareenka shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ayaa waxa uu ballan qaaday in golaha wada tashiga qaranka uu yeelan doono kulan ku saabsan sidii wadajir looga shaqayn lahaa doorashooyinku inay u dhacaan si daahfuran loona sixi lahaa qaladaadka jira. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in gudiyada doorashooyinka heer dawlad goboleed iyo heer federaal uu qabanayo sidoo kale shir fogaan araga kaasoo laga hadlayo daahfurnaanta doorashada isagoo cadeeyay in lala xisaabtamayo cid kasta oo ku xadgudubta hufnaanta doorashada.